dhawaada dhamaan saaxiibayaal mowduuca muuqaalkan waxaa marka loo ciyaarayaa yarkii dabcan ah muuqaalkiisa bishii hore dhamaadkeeda camal ah soo galiyay ka oo dabcan 10,000 dollar ah ka bilaabayay welibana aan ku wada balanay ilaa 100,000 inaan gaarsiiyo 2 mar ilaa 3 mar inaan dabcan muuqaal ka sameeyo u maleynaa laakiin in ka badan aan ciyaaray muuqaala laakiin maana ka sameynin soo marka waxaan rabaa hadeertan inaan wixii information ah 100,000 mihid garee maxaa iga dhiman waxa soo dhanaa rabaa inaan muuqaalkan ku wada wadaago hadeertan akoonkeyga waxa arkaysaa inuu balance-iga 0 yahay welibana daqiiqada ka hor aan lacagta ka saaray hadda 9 saac ilaa 6 daqiiqo ay tahay lacagta ugu dambeysana 9 saac oo nadiif ah ka saaray oo 2,100 dollar ka saaray 650 ka horeysay 500 ka horeysay 210 ka horeeyay hadda akoonka kaliya waxa ku jirto 75 senti balse 75 senti kuma jirto oo ka badan ku jirto laakiin balance-iga hadeertan intaas oo hadda maraya soo marka maadaama ilaa adiga anoo 30 ku maraya u maleynaa inaa hakiyay mis 40,000 adiga 50,000 ma dhaafsiinin oo waxa jiray hakad yar oo isoo kala dhaxgalay kadibna caawa waxay tahay markii kale oo ciyaarayo ama markii dib ugu soo laabto oo isku faahna qofka inaa dib ugu ciyaaro hadda la maraya welibana caawa dabcan isla targetka bilowga ka soo bilaabay kaasoo ah 10,000 dollar maadaama wixii hakad oo soo kala galay waqtina ay qaadatay inaa dib dabcan ugu soo laabto soo hadeertan balance-iga ma qoon noqon doona gameka Apple 40 ka galeynaa you have unfinished game waxa ku yaala game aad dhameystiran soo marka inaad dhameystirtaa laga rabaa ama aad sii wado gameka marka sababta uu istaajiyay waxay tahay maadaama almost current winning-keyga uu yahay 35,180 dollar balance-igana lacag intaas aan dhameyn laakiin lacag badan ay ku jirtay waxa rabay inaan lacagta balance-iga ku jirto bixiyo kadibna dabcan aan muuqaalkan sameeyo almost 9 saac lacagta balance-iga ku jirto ugu dambeysay bixiyay haddana 9 saac ilaa 7 daqiiqo ay tahay soo marka lacagta marka bixiyo waxa rabay lacagtan anoo dabcan inaan risk si qaato ma rabo take win inaan dhaxaraba si maadaama balance-iga aan u lose gareenin oo dabcan 3 maalmood shaqada liiga rabay hal mar u qabtay almost waa qaatay hadii aan sii wadi lahaa oo state-ka ku socdo ku sii wadi lahaa almost loss ahaan lahaa ka ku socday labada gees mid ku xiga hadii mid kamid ah taabsan lahaana almost waxa ay sala lacag gaarayso 70,000 iyo balas waliba lacag fiican ay noqonaysaa laakiin uma baahan intaas hadeertan iga badan 35,000 haystaa ilaa 50,000 ilaa 40,000 ina gaarayso 40,000 ilaa 50,000 ina gaarayso isku dayaya ilaa 15 game ka qayb qaadanaya wax game loss aan ina qaato ma rabo soo marka game-ka daawanayna ilaa dhowr game si at least u helno algorithm saxan oo dabcan aana wax loss lahayn 629 dollar 628 dollar game-ka hadda kan koreeyay wuxuu ku dhacay 1.75 game-ka hadda socdana wuxuu ku dhacay 1.63 game-kan crash-ka ah dabcan marka aad ciyaareyso waxaa muhiim ah inaad dabcan hadafkaada ama targetkada focus-ka uu ku noqdo waxa laga yaabaa inaad si fudud ku gaarto ama si fudud muxuu ahayd ama waqti badan ay kugu qaadato si walba aad ku gaarto mar walba targetkada inaad lose gareyso wax fiican ma aha mid labaad oo ah in signalka ama algorithm-ka wax ka fahanto oo games xooga aad daawato si at least aad uga hesho signal saxan oo possibilities high uu yahay mid saddexaadna waxaan isku dayi doonaa in algorithm-ka sharaxaad ka bixiyo sida hadda ku muuqata crash-ka waxba laga bedelay oo laba qaybood laga dhigay oo laba qaybood inaad dhigi kartid mid ka rabtid ciyoonka dhigi kartid mid ka rabtid xoogaa fasaxan kartid laakiin maadaama aan signal ku ciyaarayo uma baahni mid ina ciyoonka degto mid kalena meel kale kaga degto oo hal meel labadooda kaga deganaya soo marka balance xitaa ina kala weyniyo ama kala yareeyo muhiim u arko trade-kan waa qaadanaya possibility-ga ugu hooseeyana kaga deganaya labada trade hadda waa qaatay possibility-ga 1.7 oo ahaa automatically one hadda wataa waa ka daahay game-kan dabcan aad ugu xumahay waa ka daahay 525 trade-kan waa qaadanaynaa 525 possibility-ga ugu hooseeya kaga deganaa 3 inuu gaara laga yaabaa laakiin meesha filayay 25% oo kor ugu kacay trade-ka la qaadanaynaa waana trade-ka saddexaad oo si toos automatic u qaadanaysa u maleynayo 2.75 oo ku dhacay
trade kan waa khasaaray 25. trade kala hadda qaadanay trade kala qaadanayna labadan trade haddeetaan aa qaatay xaqiiqda markaa ka hadlo waa risky laakiin waxbaa yara rajeynaya oo gamekan inuu 3 ilaa 5 gaari kara ah that's why aa u qaatay haddii asaas ku qaatana almost $6,000 saas ku haystaa oo 5 haddii uu gaara ah almost saasa $6,000 ku hela $40,000 hadda waa hit gareene soo marka step xiga ah u qaadayna dib u qaadayna wuxuu noqonayaa $40,000 gamekan 3 ilaa 5 kale inuu noqdo laga yaabaa hadda 251 uu noqday gamekan laga yaabaa ama 1.5 inuu noqdo ama 3 inuu noqdo ama 5 inuu noqdo haddii manipulation uusan dhicin oo games kale la soo dhexgelin xisaabta dabcan xisaabsanayo seven, 10, 8 almost ku dhacay sababtoo hadda 7 ugu dhacay xisaabinayna waxay ahayd 5 hore ilaa 2 isku dar waxay noqonayaan 7 soo marka mararka qaar waxaa dhici karta manipulation kaasoo kugu noqonayo gameki meesha aa xisaabsanaysa ka hor ama kadibba inuu ku dhaco hadda gamekan si qalada u qaatay aada ugu qaldana inaan qaato kii hore wuxuu ku dhacay 8.3 kan ku xigana 1.44 1.44 8.3 89 oo hadda kan ku dhacay trade kala qaadane oo laba meel ah targetkeena 50,000 waaye 41,000 hadda haysanaa 39,000 oo soo laabanay 11 uu ku dhacay hadda hirtaankan 44 44 7 aa uga deganeynaa kan halka xabo 4 sababta uga degto waxay ahayd possibility-gayga wuxuu ahaa 4 inuu mid ku dhici karo soo marka midaa badbaadsanaya at least in lacag fiican aa ku helno oo 2,000 iyo jab ah ama 3,000 lacag ku dhow ku helnay trade kala hadda qaadanaynaa 4.93 uu ku dhacay kii ku xigana wuxuu ku dhacay x1 ka hore waxaa ku laabanaynaa 23 trade kala qaadanaynaa 23 1.07 hadda trade walbaa ka qayb qaadanayaa waana discipline xumo xaqiiqda markaa ka hadlo oo dabcan kuma fiicno as a trader inaad game walba ka qayb qaadatid halka game aa hubto signalkiisa aa saxatay inaad ka qayb qaadataa ku fiican sabaha game walba ugu qayb qaadanaya waxay tahay in dabcan targetka u baahanayo uu iska kooban yahay lacagta haysta balancing ay badan tahay waana mararka qaar qaladaadka dhalinyarada ay ku dhacaan adoo balancing isku haleynaya inaad game walba trade walba ka qayb qaadatid hadda marka aad joojinaya as strategy oo ciyaaraya gamekan possibility ugu hooseeya 1.5 waaye haddii 1.5 uu noqo waa 3 ama 5 uu noqon karaa 1.5 mobile gaarinba 28 manipulation ama mararka qaar jiri karo oo games la soo dhexgeli karaa hadda balancing-gayga dib ugu laabtay almost anoo 40,000 targetkayga gaaray laakiin dib u soo laabanaya 28 soo marka gamekan 3 maybe inuu dhaafi karo 3 oo ku dhacay 2,000 iyo 2,000 aan qasaariyay 4,000 haddii aa ku darsan lahayn almost waxaa aysan lahayn 37,000 laakiin 40,000 dib inaan ugu laabanaa rabnaa 3 waa hadirtan mar kale ku laabanaynaa 7 5 9 15 17 game dabcan waxaa filinayaa 6 maybe mararka qaar 6 ina hal mid kaga dhigto waa hal mid ina 9 kaga dhigto waa inta la gaarin fuck 844 uu ku dhacay sida kuu muuqatay waana dabcan halka dabcan aad uga cabsanayay 8.42 uu ku dhacay 99 gamekan dabcan xisaabsanay mararka qaar waa qaladaadka aad galaysid
kahor inaa game ka degato aad ay u fiican tahay inta meesha xisaabsanaysa la gaarin sababtoo mararka qaar waxaa dhici karta meesha filis ama in wax yar laga soo hormariyo ama wax yar laga dib mariyo sababta dabcan 8 u xisaabsanayeen waxay ahayd 3-3 game ahaa imaade waxaa ku xigsaday game 24 ah as a square root ahaan xisaabtaas marka loo eego waxay dabcan dib ugu laabanaysaa 24 kaas ama 9 ama dabcan 7 ama muxuu ahaay 5 ama 3 soo marka 3 iyo 5 ba waa ka gudubnay 6 sababta u dhahay waxay ahayd in 7 la igu gaaro maan rabin oo hadii 7 la igu gaari lahaa minus caadi ku jiri lahaa soo marka 9 hadii 7 uu dhaafay almost 9 xisaabsanahay 8 ku dhacay mararka qaarna waa manipulation ka dhici karo hadda gameka uu dambeeyay wuxuu ku dhacay 151 waan iska ciyaaraa inta wax sharaxayo soo marka ina foxed noqdo waaye 30k ahaaya 20k iga dhiman almost halka hore 15k iga dhinan ina oo yara aamuso waaye game kan 5.8 ku dhacay as possibility 3 uu gaari karaa 2.5 uu dhaafi karaa 2.5 ilaa 3 meesha u dhaxayso inuu ku dhaca laga yaabaa kun 700 iyo 1600 ka heesanaa halka gameka dabcan uu noqon karo 5.8 maybe gameka inuu noqon karo 13 15 almost 13 aan dhahay 12 17 ku dhacay waana mararka qaar waxyaabo sidaas u dhaco hadii gameka marka la qaadanayna xisaab ahaan xataa marka fiirisid 6 lagu daro 7 13 waaye trade kaasna waxa xisaabinaa inuu 13 ku dhici karo sababta 12 ugu dhacana dabcan waa manipulation taasoo dabcan mar walba qofka in lagu qiyaameeyo macquul tahay oo meesha uu xisaabinayo meel kale gameka uu ku dhacayo 1.87 1.87 5 ilaa 6 aad gamekan ka rabaa 5 ilaa 6 ka rabaa ha dhahay 5 ina kaga digtaa rabe laakiin waa ka yara dahay waana khaladkeyga xaqiiqda marka ka hadlo up to 4 aad gamekan ka rabaa 7 12 ama 13 12 ilaa 13 15 21 19 23 25 20 oo ku dhacay 21 ka ama 19 ka labadaas mid uu ahaa gamekan manipulation a jiro oo exactly gameka meesha ku dhacay muhiim ah inuu ku dhaco five almost hada 41,175 dollar ahaaya kontonka kunna waxaa iga dhiman keliya 8,000 iyo waxaa iga dhiman 8,825 dollar iga dhiman trade-ka marka la qaadanaynaa wuxuu ku dhacay 24.18 possibility ugu hooseeya inaan hal mid kaga digto waaye si aan wax risk ah u qaadan 24.18 no risk yaa lahaa almost hadirtan waxaa hayaa 44,802 dollar keliyana waxaa iga dhiman 5,198 dollar targetkeyga automatically waa hit gareyn lahaa haddana waa gaari karaa oo keliya 5,000 iga dhiman waxaa qaatay 1 2 3 4 5 6 game oo consecutive ah qaatay trade ku dambeeyay hadda inta nagula dhacay 27 hadda gamekan qalad ku galay 27 34 waa iska qaatay 27 34 maxaa ka dambeeyay waa 1.03 xisaab isku yara aadan waaye taas waa u qaadanaya 1.7 inuu noqdo laga yaabaa 1.7 ama 3 4 ama 7
midkoodu noqon karaa 25 trade kala hadda qaadanay 20.5 45,000 lacag ku dhawaana gaarinay hadeertaan lacag 5,000 iyo jajab ku dhawaa lose gareynay one point six 1.26 to 6 3 to 4 game can 3 to 4 manipulation aska dhici karo marka qaar last trade oo crash ka qaadanaya waa apple fartanka wareegsanaya maadaama aan game walba trade walba ka qayb qaadanayo oo balance-geyga aan isku haleynayo trade walba galooyo so marka game-kan hadda 4 inuu noqdo laga yaabaa ama 7 ama 14 hadii labada mid ka deganaa dhaho sababta hadda usii qaata last trade anoo dhahay manipulation ay yara jiro game 14 ama 7 ama 4 inuu imaado laga yaabaa soddon iyo 3,500 ayaa ilaa 3,000 kun si ciyaara sababtoo ah 4 hadii ay ka badbaadno 7 almost labada meel marka la isku daro 10,000 dollar haysana hadii kaliya 4 ay ka badbaadno waa inkastoo 4 inaa ka badbaadinayso u badnaan wili waa deenayaa hal xabaa 7 uga deganaya sida idin sheeg waa kana 7q hadii game ku dhacay sababta hal xab u sii deystay waxay tahay at least 14 inuu gaari karo oo 12 meelahaas ay kaga digto 7 oo nadiif ku dhacay kan 4 ama 7 kale labadaas midkoodu noqon karaa hal xab 4 inta la gaarin almost mid ay kaga digtay laakiin waa ka yara daahay aadaan ugu xumahay 3 ama 4 mid kale 3 ama 4 wali isi taagan waana sharaxi doonaa bilow ilaa dhamaad game-ka 7 ku dhacay sababta ku keenay inaa dhaho 4 ama 7 ama 14 ama 4 ama 7 ama 14 midkoodu ku dhacay sababta u dhahay oo hal mid kaga digtay mid kalena u sii deystay dib ka sharaxi doonaa laakiin trade-kana ka soo laabanaya horta marka hore oo still manipulation ay socdo trade-ka ay rabay 7 ama 3 ama 4 midkooda suganaya hadeertan wali still 3ga rajadiisa taagan inta badan dadka muuqaaladeeda hore loo socdana waa ay fahmi karaan inaa loo sugray maraba marka 7 xitaa wali possibility-giisu uu taagan yahay 4 possibility-giisu uu taagan yahay dhamaantood possibility-goodu way taagan yihiin laakiin games-ka aan loo sugraynayo aad badan hadda waxa loo sugrayay 1 2 3 4 5 game 6 game loo sugrayay 5 game 7 game 4 kii hadda rajadiisa isagana aad u soo dhismaysaa 4 ama 3 maybe حتى 8 noqon karaa laakiin 7 inta la gaarin inaa 3 hadda noqday waa qaadanayna trade-ka mar kale labaatan iyo 3 kun oo laabtay 35 kun aan kasoo bilaabay almost 11 kun iyo $100 oo nadiif ah ameen isku jirnaa marka la qaadanayna 4 kartidiisa hadda dhismayso
haddii 20 kun aan hoos uga degno abal 40 ka aadayna oo kan waqti badan liiga baahan yahay waqtigaas ma hayo muuqaalka aad igu dheeraanayo soo marka waxa ku qasbanaa inaa at least ag trade walba ka qayb qaato 7 9 13 intuu se gaarin inaa midkood ka degto waaye 9 kii hadda igu la qarxay dibku waxa keenaya waxay tahay 600 bis dhigan karaa minuski igu jirto waxaan 15 kun waaye inaa isla markaa kasoo laabtaa rabaa 10 kun hadda heeli lahaa soo marka at least hadii 13 ama 12 kaga degan lahaa waxay salahay 12 kun 13 kun meelahaas ilaa 14 kun taasoo ay u sii dhigtay trade ku dambeeyay halku ku dhacay 891 16 15 mid uga degto waaye 21 yaali u gaarin 42,693 dollar ahaaya mararka qaar inaad trade walba ka qayb qaato waxyaabo ay u kalifay waxay tahay balance-kiigu uu fiican yahay manipulation-ka aad u badan yahay game-kana ma sugi karo soo marka waxa ku qasbanaya si game-kaas aan u lose gareynin inaad trade walba ka qayb qaato hadda trade waxa jiro 627 dollar iyo 628 dollar ay kala saarneed oo 8.91 ku dhacay sababta u sii saarnaad waxay ahayd inaad 13 ilaa 12 kaga degto si 14 kun ilaa 15 kun u helo oo hal mar balance fiican u helo haddii 8 kaga degala almost midna waxa islahay 5500 mid kalena 5500 12 kun ayaa islaha sababta ugu dega waaya waxay tahay balance-kiiga uu fiican yahay games fara badan ma rabo inaad ka qayb qaato target-kiiga si fudud rabo inaad ku gareeyo soo marka waxa ku qasbanaa inaad trade-ki meesha aafilay hadii uu ku dhaceen inaad ka qayb qaato inaa maxuu ahayta meesha rabo inuu gaaro inaad sugto waana khaladaadka marka qaar lagu dhaco hadartan waa si galooya wali toole 32 laakiin hadda nidaamka ku wadaya kaliya 10 kun ayaga dhiman easy aan ku gaarayaa 5 maybe inuu noqdo almost hadda 46,327 dollar ahna 51,000 dollar halkaan nadiif ku gaarsiin doonaa inkastoo muuqaalka aad u dheeraaday laakiin halkaan 51,000 ku gaarsiinayna laati 395 probability ugu hooseyna kaga digto waaye manipulation laati 395 46 marka la qaadanayna trade-kan hadda inaa game sugo ma kari karo laakiin waa ogahay in gameskan ay yihiin as risky haddana waa sii qaadanaya mar walbo tirada ay ka yartahay 2 signal sax ma heli kartid xaqiiqda marka laga hadlo inkastoo 46 ka mar walba tilmaam uu leeyahay trade-kan waa qaadan karnaa maybe 3 inuu noqdo ama 3 ku dhawaad uu noqdo maybe inuu noqdo 8 maybe inuu noqdo 5 ama 6 ama 7 so automatically hadii 8 uu u socdo 7 kaga degano target-keena saasa ku hit gareene 9 uu ku dhacay manipulation jiray 9.01 uu ku dhacay 8 uu game-ka ahaa laakiin 9 uu ku dhacay sababtana waxay tahay in dabcan manipulation uu jiro mar walbana manipulation-kaas uu jirayaa soo hadirtaan uma baahnin inaad risk qaato kaliya $1 hadirtaan iga dhiman $1 marka anoo ayar ku gaarayaa degdeg asoo jirin $400 hadeysana 246 probability aad u fiican yahay sida hore kugu sheegay probability-ga 246 346 aad u fiican yahay kan hadii meel
aad u hooseysa ka badbaadno adiga 1.7 14 21 ilaa 1.7 oo gaari karaa. trade kan ayuu ka digtay laakiin waa sii dhigtay waana qaladaadka mararka qaar qofku uu gali karo. 152 diba u laabtay hadda si ayr inaa u ciyaaro waaye 05 025 052 haddii ay ka badbaadno 94 haddaanu wax trade gaarin $5,000 iga dhiman, wax trade $6,000 weliba iga dhiman ama 5,500 iga dhiman, wax trade anoo qasaarina 5,000 hit gareynaya laakiin kaliya silence ya galay hadda almost 2,000 hit gareey 48,000 haya 3,000 iga dhiman 3,000 without talking araba ina hit gareey waa aamusi doonaa si game ka focus au siiyo 511 511 511 511 511 230 230 230 230 230 230 511 230 511 230 511 230 511 230 511 230 511 230 511 230 511 230 511 230 511 230 511 230 230 230 511 230 15 maybe 35 10 35 10 35 10 35 10 35 10 35 10 35 10 35 10 35 10 35 10 35 10 35 10 35 342 342 342 342 342 342 46 46 46 46 146 342 14 114 114 146 53 153 153 153 153 153 60k waa inaa hit garay 60k sababtana dib ka sharxi doonaa maadaama hadda waxa xisaabsanayo 60k oo nadiif ah rabaa almost 53,000 hadda haya gamekan 16 15 20 25 16 ku dhacay sida ku muuqato laakiin hadda inaa sharax ma rabi oo almost targetkayga maan gaarin sababta 8 uga degtay intuu sa gaarin waxay ahayd dabcan in aad dabcan lose gareenin 53 53 16 ku imaaday hadii sidid uu imaan lahaa hadda almost koto kuno nadiif ahayna hal mar oo game waxa u baahanaa nadiif ah ana deganaan ku ciyaaraa dib ka sharxi doona waxaan dhan oo history ii yaalan
iyo sababta aan ku keenay inaa 8 kaga degto gamekan aan u saadaali inuu 15 ilaa 16 ku dhici karo. hadda iska ciyaarooyaa xisaab saxan ma haysto xaqiiqda markaa ka hadlo. 67 maybe gamekan 53,000 hadda ay soo hit gareena. hadda in algorithm saxan helaa rabaa soo markaa hadda sharaxayaa. halkan igu celi waxaa kasoo bilowdaa halkan gameka ugu dambeeyay ee dabcan lacag aad dhigto oo dabcan aan lacagteeda kala baxo wuxuu ahaa 342 1800 kala baxay. game kale waxaa imaada 146 ah. 146 kaas ka tag 1.14 imaada kasii tag 1.14 isla sidaas oo kale ilaa iyo 1.46 ka xisaabaad kala dabcan xisaabsanaya 153 ya imaada. 153 marka 53 lagu daro 8 ay noqoneen. kadib haddana waxaa imaaday x104 4 oo dabcan oo u dhiganta muxuu ahaay taa ama dabcan u laabanayso 8 sidoo kale 2 alif 16. soo marka gameka ku xiga automatically markaa qaadanaya waxaa sheegay in dabcan aan rabo inaa hit gareeyo 60,000 trade-kan waa qaadanaynaa inkastoo kii hore meesha ku dhacay aan la soconin. soo marka gamekan ana waxaa kaga digtaa dirtaan oo 16 ku dhacayo waxaa kaga digtay almost 8 intuusa gaarin oo 8 bi inuu ku dhici karaa filinaya. waxaa laga yaabaa possibility ugu hooseeya 8 ahaa laakiin 8 markuu dhaafo horaa ka sheegay in 15 ama 16 uu ku dhici karo. almost hadda 6,905 hit gareey. marka la trade qaadanaynaa trade-kan hadda waa ku qaldanaa laakiin waa qaadanayaa 62,000 rabaa inaa hit gareeyo. dabcan targetkeyga mar walba aaba bedelayo ugu dambeyn khasaare ku dambeyn doontaa laakiin kaliya hadda waxaa u baahanaa wax aad isaga yar. soo marka riski xataa muhiim maaha. 62,000 u baahanahay 60,000 nadiif ah hadeystaa 62 easy gana ku hit gareynayna 2,000 99 99 trade weyn hadda muu baahniyay. soo marka halkan dhown guduudka meeshan ku jiro dhan waa ka wada bixinayaa. waxaad u baahanay lacag gaarayso 5,200 dollar ilaa meelahaas u baahanay. guduudka dhan halkan waa clear gareynaa sababtoo ah targetkii kaliya waxaa iga dhiman lacag yar. soo marka history-giga quruxsanaya targetkigana waa gaaraya anoo without risk ah. sababta hadda mararka qaar riski uu qaadanayo waxay limit weyn u baahnaa laakiin without risk anoo targetkeyga 2 mar bedelay haddana hit gareynaya 37 labadan xabay dabcan hadda iga bilaabatay qorshaha aan rabo inaan ku hit gareeyo 262 laba kale igu xigsatay 58,000 hadda hayaa kaliya 5,000 nadiif ah iga dhiman. trade kala sii qaadanaa 0.5 intuusa gaarin 1.5 intuusa gaarin aan 1.5 inaan ka digto waaye labada trade ba. marka qaar manipulation aan dhici karo inuu kasoo hormara ama kadib maraa laakiin waxaa kaas hadda manipulation-kii dhacay oo bilowgaaba nagula riday. bounty 5 kilo taagan yahay sida ku muuqato xisaab ahaan kaliya 0 soo hormartay. last trade muxuu ahaa okay gamekan 5 inuu noqdo waa laga yaabaa qaadanaynaa. gamekan 358 midkood inuu noqdo laga yaabaa
358 tradekan waa qaadaneynaa. xogaa inaa jawigeyga yara dejiyo u yara aamusay qurux badan tahay, waa yara aamusayaa si jawigeyga u yara dejiyo. 3 4 5 8 midkoodu noqon karaa. alxabiiga deg 5 ku dhacay sida ku muuqata. trade kaloo 4 imaan karo ama 3 205. triga dabcan sababtoo hal xaba uga degtay 3 filaye. hadda gamekan 4 uu noqon karaa, 1 point wuxuu noqon karaa 7 ama 7 uu noqon karaa ilaa 8 ama muxuu ahayd wuxuu noqon karaa next game oo dabcan meel fiican gaaraya ka hadlaya haddii manipulation aysan dhicin. laakiin game hadda waxaa noo taagan gaari karo 3 ama 4 ama 5 ama 7 ama 9 ama 14 ama 15 ama 19 ama 21 ama 24 game. dabcan xisaabta square root marka loo eego kisi ahaan ah oo meel fiican gaari karo. meeshiis ugu hooseysa 3 noqonaysaa, meeshiis ugu sareysana adii dhowr iyo 20 meelaha 3 ama 4. sababta 4 iyo 3 u xisaabinaya waxay tahay 7 haddii dabcan dib loo celiyo inkastoo 3 ay u laabanayso mararka qaar manipulation waxaa jiro 4 ah oo inta badan mararka qaar 4 ay noqoto. hadda inaa yara aamuso waaye 60 kuna gaarnin dib usoo laabanay waana qaladkayga dabcan. waa yara aamusayaa 13 kun ama waxaa u baahannahay 15 kun aan u baahannahay maya 14 kun nadiif ah u baahannahay. hadda waxaa u baahannahay 15 kun oo nadiif ah. shan haddii ay ka badbaadna 7 intaa la gaarin waa inaa ka deganaa. 4,300 iyo 4,500 la deganay. 14 15 17 19 21 23 25 maybe manipulation u dhici karaa. 23 waxaa hadda ku dhacay sida kuwa muuqata waana gameka kisiga ee dabcan hore u sheegay. 23 trade kala hadda qaadanay 93 almost mar kale haddana 60 keenu kun hit gareene 13 inuu ku dhaco ama 14 ama 15 laga yaabaa. almost anaga hadirtan keliya waxaa u baahannahay 20 kun ma rabno inaan wax risk ah qaadano. 47 kun door hadda saasa ku haysanaa. tradekan waa qaadaneynaa 1000 doolar u baahannahay. almost hadirtan waxaa sidaas ku hidgareeyay 62,213 doolar. sida muuqaalka dabcan aa ku arkaysana markii gameka aa soo galayay keliya waxaa ii taalay 35 kun oo abal fartanka aa kasoo bilaabay. 35 kun waxaa hadda sameeyey 22 kun iyo 213 doolar oo profit ah just inta muuqaalka hadda aa wado. muuqaalkan waxaa bilaabay 9 saac iyo 30 daqiiqo markay ii ahayd haddana waxay ii tahay 10 saac iyo 5 daqiiqo waa 35 daqiiqo ilaa 36 daqiiqo meelahaas oo nadiif ah.
keliya marka targetkeyga sababta hadda targetkeyga 3 mar soo gaaray oo waliba aaba bedelay targetkeyga hadii 40,000 uu noqon lahaa almost 10 daqiiqo meesha igu qaateen haddii kontonka markaa gaaray targetkeyga aad bedeli lahaynna sidoo kale 20 daqiiqo ama 25 daqiiqo meesha igu qaateen ama 20 daqiiqo xataa meesha igu qaateen laakiin targetkeyga bedelay targetkan mar walbo aad bedeshan waa mar walbo qalad ama risk ah oo bareerto qofna kulama talinay targetkiisa inuu bedelo mar walbo targetkaada inuu focus ku noqdo fiican sababta u bedelay laakiin waxay ahayd maadaama aan meesha wax badan ku dhex jiray halka trade akhrisanayna dabcan trade muhiim u yahay waana trade-ki 16 ku dhacayo oo 8 ka kaga deganay waa sababta u bedelay trade-ka ama qorshaha aaraw sababta almost dhowr trade soo dhigtaa soo qasaaray trade-ka waxa rabay dabcan management fiican oo ku sameeyo risk dambana aan qaadanin lacag fiican oo ku helo isla game-kaas hadii hal mid aadeysa lahaa waa hit gareyn lahaa laakiin maan rabin oo minus weyn ay ugu jiray oo ka saarab inaad 10 ku helo sidoo kale 60 kuna markaa dhahay 60 ku markaa garaadin 62 ilaa 63 kuna dhahay saas hadan dib ugu laabtay mar walba targetkaaga aad hit gareyso waxa ka lumay focuska ama qorshe ama meesha soo gashay hadii aad ka bixin oo si ciyaarto soo marka qofna kulama talina inuu si ciyaaro waxa rajaynayaa inaan muuqaalkan wax badan ka fahamtay sidoo kale aad ka faa'iideysan doonto marka hadii aad daawashada ku regional ka xashashada kaaga codsanayna jalak subscribe saarto muuqaalkan aad like saarto saaxiibana loo daagto waana ku maasantahay daawashada muuqaalkan inkastoo araba dirtaan lacagta ina qarkid bixiyo ma rabo in waxba dhibaato iga soo gaarto 10,000 oo door kaliya ka bilaabay 10 iyo waxa bixinayna $5,000 $5,200 $5,000 oo nadiif ah Binance iga imaanayso $5,200 $5,000 kale oo nadiif ah Binance iga imaanayso $10,000 dabcan marka hore soo gelino waa inkastoo lacag kala bixiyay soo marka waxa bixinayna $20,000 iyo $600 $20,600 $610 $6,100 hada bixina $5,000 Binance inoo imaanayso $96 meelahaas 5,000 ilaa 26,000 almost waxa bixiyay 35,000 oo nadiif ah soo marka 25,000 ku deynaya balance ina ka dhigaa rabaa oo at least lacag fiican ku hid gareeyo almost 26,000 iyo jajab adi 27,000 iyo jajab aan go'day ma 37,000 iyo jajab aan go'ay hadda qaladkii kamid tahay inaa game aan hubin aan lacag iska dhigto hadii khasaarno waxa laga yaabaa inaa lacagto dhan u khasaaro soo marka mar rabo oo kaliya balance iga rabo inaan arko 26,000 ayaa hartay 37,000 waa saaray oo almost halkaan ay kaaga muuqataa marka waxaan rajaynayaa inaan muuqaalka wax badan ka fahantay sidoo kale aad ka faa'iideysan doonto marka hadii aad daawashada ku regional ka xashashada kaaga codsanayna jalak subscribe saarto muuqaalkan aad like saarto saaxiibana la wadaagto waana ku maasantahay daawashada muuqaalkan